kulankani oo ka qabsoomay xafiiska maamulka gobolka Awdal ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba madax dhaqameedka gobolka Awdal aqoon-yahano isku duwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Awdal iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal ujeedada kulankani ayaa waxa uu daarnaa taageerida khudbadii uu madaxweynaha Somaliland ka jeediyay shirkii wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka qabsoomay dalka Djibouti iyo mahadcelin ay u mahadcelinayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar oo kulankani isagu gogasha u dhigay gooreen waxa halkaasi ka hadlay salaadiintii iyo cuqaashi iyo kulankani soo qabanqaabiyay waxaana hadaladoodii kamid ahaa soo dhaweynayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi oo ka geystay hawl adag oo dayrkii ay madaxweynayaashii hore Soomaaliland dumin kari waayeen dumiyay isagu khudbadda uu ka jeediyay shirkii wada hadalka Soomaaliya Somaliland iyaanu ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow aw guuriya baan leenahay waxaan kale oon ku soo dhaweynayaa oon meeyarka Boorama leeyahay madaxweynaha ku soo dhaweey gobolka Awdal ku martiqaad baan leeyahay hadalada agaasimays kuwaana Allah ku asturaan leena madaxweynaha qaranka Somaliland waxaan leenahay talaabadaad qaaday waa mid loo baahnaa waa mid muhiim ah waanu taageersanna inay ummadda Soomaaliyeed wax kasta wada hadal ku dhamaysataan taageersanna sallallahu alayhi wasallam halkan maanta waxaan kaga hadlaynaa oo ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Soomaaliland arrimaha halka uu iska taagay ayaan ku taageersannahay shirka Djibouti madaxweynaha Djibouti sidoo kale sida gogasha u dhigay sida madaxweynaha uu soo dhaweeyay ayaan aad ugu soo dhaweynaynaa warkuna wuxuu naga dhayahay haddaan nahay shacabka reer Boorama duqaydiisii iyo shacabba waxaan ku taageersannahay موقفك مدحوينها iyagu iska taagay Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland baan nahay sidaasaan walaal ku noqonaynaa oo wax lagu wada qabsanayaa sidaa horta hal ictiraaf hadii la yiraahdo haday tahay shantii Soomaaliyeed kale haduuna hadal ka jirin in la yiraahdo Soomaaliland iyadoo kama go'aysa halka in la yiraahdo meesha wax ku jira ma aha ugu salaamayo ugu taageersanahay khudbadii uu ka jeediyay Djibouti golihii weynaa halka lagu kulmay mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu gogasha u dhigay haday Ingiriisi tahay afsay oo Soomaali tahay waan dhageysanay khudbadii Ingiriisida korku ninku ku turjumaanayna waan dhageysanay tii af Soomaaligana waan dhageysanay waxaan leenahay si fiican baan u taageersanahay si fiican baan u garab taaganahay si fiican baan ugu soo dhaweynaynaa intii Muuse madaxweynaha khayr Allah siiyo dib u eegis fiican buu sameeyay fikir fiican buu la tagay fikirkaas waxyaalo badan oo imika aan halka sheegay runtii ayaan saadaalin karaa barakaad kulay muhiimadan maanta isugu nimid waxa weeyaan taageerida madaxweynaha shirka ka socda Djibouti aad baan u taageeraynaa haddaan nahay haweenka reer Awdal waxaan kulay filaynaa inuu ka soo hooyin doono madaxweynuhu guul uu kana soo hooyay Soomaaliland bay kulay wax isaga jiraan insha Allah biidnillah si khayr qabto waxaan ka codsanaynaa reer Soomaaliya walaalihiin inayna sii daayaan kulankeenan maanta wuxuu daaran yahay taageerada shirka ka socda jamhuuriyadda Djibouti oo inaga inooga qayb galay madaxweynaha Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan halkan isugu nimidnay taageerada madaxweynaha khudbadii uu ka jeediyay shirkaasi waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo isagu kulankan qabanqaabiyay runtii kulay labada walaalaan baynu nahay sida aniga ila tahay dalka Soomaaliya geesta kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay oo taageeray khudbadii uu madaxweynaha Somaliland ka jeediyay madashii wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya maayirka degmada Boorama barsaabka xigeenka gobolka Awdal iyo barsaabka gobolka Awdal waxaana hadaladoodii kamid ahaa waa idinka mahadnaqaynaa sidaas ku soo abaabisheen maanta hadaatiin dadweynaha gobolka Awdal oo ay horkacayeen hoggaanka dhaqanka salaadiinta iyo cuqaasha aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka waxaan leenahay waa ku mahadsantiin ka maamul ahaan haddaad nagu soo casuunteen oo tiraahdeen
shucuubtayada ayaan maanta muujinaynaaye waa inaad noo timaadda waa ku mahadsantihiin horta kulankani waxa weeye kulan ay dadka reer awdal oo ah hooyadii somalilan ay ku caddaynayaan mowqifkooga iyo taageeradooda ay la daba joogaan madaxweynahooga jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi khudbaddii uu jeediyey waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin waana idinku garab taagannahay waa waxaa u dhiibateen kol haddaad tidhaahdeen muu garab marin waxaannu u egmannay afkaygiibuu ku hadlay mowqifkayguu ku hadlay calooshayada wixii ku jiray buu muujiyey sidaasaan u taageeranaa noo yimaada ka maamulahaan haddaad tidhaahdeen annaguna idin garab taagannahay oo keliya shacabkayagu taageerada ay muujiyeen inaan kala qayb qaadanno keliya annagoo weliba sidaas muujinnay xanuunka jira awgii dadku inayna soo wada bixin aan ka shaqaynaynay qabaqaabadaas gobol ahaan iyo iminkana waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin anigoo afka gobolka ku hadlaya waxaan taageerayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi runtii khudbaddii dhaxalgalka ahayd oo aan odhan karo waa khudbaddii qarniga oo aan hadal waxba la dhaafin oo arrin waxba la dhaafin oo garnaqsaday boodhiyo xero haddii la garnaqsan lahaa garnaqsaday oo soo bandhigay oo suuq geeya somalilan oo arrinkeedii from bigin ilaa bilow ilaa imminka maanta ay joogto aan hal dhaafin waannu ku taageersannahay kariya cabdisheekh faaris kariya saxane telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV magaalada Boorama